sanadkii tagay ee 2023 waxa uu ahaa hay'adda Hormuud Salaam Foundation sanad wax qabad waxaan kaalin mug leh ka qaadanay waajibaadka naga saaran horumarinta bulshadeena u gurmashada dadkeena iyo waliba daryeelka dadka danyarta ah waxaan ku faraxsanahay inaan dib ugu celinay bulshadeena in ku dhow $5 milyan sanadkii tagay ee 2023 taas oo aan ku bixinay horumarinta waxbarashada dadkeena caafimaadka bulshadeena shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed arrimaha gargaarka iyo gurmadka musiibooyinka waxaan lacag dhan $1 milyan ugu deeqnay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay fatahaadii ka dhacday qaar kamid ah gobolada dalka iyo waliba degmooyinka dalkeena sanadkii 2023 waxaan noqonay shirkadii koowaad ee u istaagtay dadkeeda bixisana lacagtii ugu badneed ay bixiso hay'ad Soomaaliyeed dhanka gargaarka iyo gurmadka annaga oo gudanayna mas'uuliyadda naga saaran badbaadinta hantida dadkeena sanadkii tagay waxay madaaliyaasheenu dabdamisku ka qayb qaateen daminta dab gaaraya 191 waxaana deeq dhaqaale gaarsiinay qaar kamid ah dadkii ku hanti beelay dabkaasi innagoo gaarsiinay deeq lacageed oo gaaraysa $961,000 waxaan sidoo kale kaalmeynay caafimaadka iyo sidoo kale daryeelka bukaanada xaaladooda caafimaad dalka wax looga qaban waayay innagoona ka caawinay inay helaan caafimaad dibadda ah waxaana sidoo kale caawin u sameynay mushaaraadka qaar kamid ah dad ka shaqeeya MCJada waxaana ku bixinay qarash gaaraya $829,858 dhanka horumarinta caafimaadka bulshada waxaan mas'uuliyad gaar ah iska saarnay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir inagoo bixinay qarashka ku baxa shidaalka motorka iyo sidoo kale dayactirkiisaba waxaan sidoo kale ka taageernay qarashaadka ku baxa warshada soo saarta oksijiinka oo aan ugu deeqnay sanadkii 2021 waxaana hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay sidoo kale bixisaa badbaadinta dadka danyarta ah waxaana sidoo kale kaliya loo dhaqaa toddobaadkii ilaa 3 jeer dad danyar ah kuwaas oo aan awoodin in iska bixiyaan qarashaadkooda waxaana ku baxa $812,987 waxaan taageernay xarunta dhaxal reeb oo ah urur ka shaqeeya sidii dhaxal looga reebi lahaa waxgaradka iyo way aragga Soomaaliyeed loona horumarin lahaa dhaqanka iyo luqadda wax soo saarka dalkeena halka sidoo kale aan bixinay qarashka tartamo loo qabtay macallimiin iyo arday baratay Quraanka kuwaas oo ka kala dhacay goobo kala duwan waxaana ku bixinay lacag gaaraysa $408,150 dhanka horumarinta waxbarashada waxaa farxad inoo ah in sanadkii la soo dhaafay dufcadii koowaad ee wax ku barata deeqda waxbarashada ee Hormuud Salaam Foundation ay ka qalin jabiyeen jaamacadaha dalka halka hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo kaashanaysa dowladda Ingiriiska ay si wada jir u sugootiyeen qaar kamid ah ardayda sanadkan ku guuleysatay deeqda waxbarashada sanadlaha ee master degree-ga oo ay siiso dowladda Soomaaliya ee loo yaqaano Javelin Scholarship waxaan wax badan ka qabanay waxbarashada dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee dhigta iskuulka Noolayaasha Al-Nuur iyo sidoo kale waxbarashada ardayda danyarta ah oo ay gacanta ku hayso jamciyadda Suhayda halka deeqda waxbarashada ee Hormuud Salaam Foundation oo ah mid sanadlaha ay ka qayb galaan ardayda ka soo baxay dugsiga sare ee dalka waxaana sidoo kale sameynaa tababaro la siiyo ardayda deeqda waxbarasho ku guuleysato xilliyada fasaxa waxaana ku baxda lacag gaaraysa $396,000 waxaan sanad kasta afurin iyo caawin u sameynaa qaybaha kala duwan ee bulshada siiba dadka nugul inagoo gaarsiina raashin isugu jira timir dhar saliid iyo sidoo kale lacag kaash ah waxaana sanadkii la soo dhaafay ku baxday lacag gaaraysa $300,460 sanadkii tagay ee 2023 waxa uu ahaa sanad aan qabanay howlo badan oo waxtar u lahaa ummadeena Soomaaliyeed gaar ahaan inta ay markasta la soo gudbunaato culeysyo u baahan in laga gacan siiyo inagoo aaminsan inay tahay waajibaad muslimnimo iyo mid Soomaalinimo waxaana markasta naga go'an in aan kaalmeyno bulshadeena Soomaaliyeed xilliyada ay u baahan yihiin gargaarka iyo waliba garab istaaga